السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanalkeena Duni Socod. Videogeenan maanta waxaynu ku eegi doonaa barnaamij aad ay dadku wada yaqaanaan oo noqday midka kaalinta koowaad kaga jira adduunka xagga downloadka waa TikTok. waxaynu ku eegi doonaa sheekada ninka sameeyay barnaamijkan iyo shirkadda ka dambaysa. haddii aad nagu cusub tahay si aad ula socoto videoda dambe fadlan saar subscribe. Zhang YIMING waxa uu ku dhashay sanadkii 1983 Fujian oo ah magaalo ku taala dalka Shiinaha. waxa uu ku soo koray magaalada Luoyang oo ku taala koonfur bari dalka Shiinaha. waxa uu wax ku bartay jaamacadda Nikkei University isagoo oo ka baxay kulliyadda software engineering. Zhang waqtigii uu ku jiray jaamacadda waxa uu ku shaqayn jiray samaynta website-yada iyo cilad ka saarista kombiyuutarada. sababtuna waxay ahayd sidii uu u heli lahaa lacag dheeraad ah oo uu ku kafeeyo noloshiisa gaarka ah. waxa uu ka qalin jebiyay sanadkii 2006 wuxuu ka helay shaqo shirkadda Kuzum. sanadka bacdi waxa uu noqday technical director. sanadkii 2008 waxa uu ka tagay shaqadii Kuzum. isla sanadka waxa uu ku biiray shirkadda Microsoft. Zhang ma qancin weli shaqadii Microsoft sababo la xiriira shuruucda adag ee ka jira shirkadda. waxay sabab u noqotay inuu ka tago Microsoft. waxa uu intaa kadib ku biiray DAAWO. isla waqti yar kadib DAAWO way kacday. 2009 waxa uu bilaabay company isagu leeyahay waxa uu ugu magac daray 99fang.com. 3 sano kadib waxa uu joojiyay shirkaddii hore. waxa sidoo kale uu bilaabay shirkad kale oo uu ugu magac daray ByteDance oo xarunteedu tahay dalka Shiinaha. aragtida uu ka lahaa shirkadda waxay ahayd isticmaalka nidaamka casriga ah ee loo yaqaan artificial intelligence. isla markaa waxa uu sidoo kale maalgashi ka helay shirkado kale. shaqadii ugu horeysay ee ay qabatay ByteDance waxay ahayd inay sii deysay application la yiraahdo Tutu oo ahaa application wararka laga daalacdo. waxa uu ku xidhnaa 13 milyan oo qof maalin kasta. sanadkii 2014 suuqo shirkadda la yiraahdo waxay maalgashatay lacag dhan 100 milyan shirkadda ByteDance. 2016 ByteDance waxay suuqa ku sii deysay application cusub oo la yiraahdo TikTok kaas oo gudaha Shiinaha looga yaqaan Douyin. application-kan ayaa shaqo ahaan application la isla wadaagi karo fiidiyowyada. 2017 ByteDance waxay iibsatay Musical.ly. waxay ku iibsatay qiime 1 bilyan oo kaas oo lagu laray abkii hore ee TikTok. maanta waxay isticmaalaa TikTok 500 oo milyan. isla waqti yar gudihii waxa uu noqday mid caan ka ah dunida. Zhang waxa uu soo saaray applicationo kale sida Video, Tabbas Video, New Republic and currently is Hello App. horumarka ay ka gaadheen TikTok waxa si ku meel gaar ah looga xiray dalalka Indonesia iyo Hindiya. sidoo kale waxa lagu helay TikTok inay ku xadgudubtay xuquuqda carruurta ee loo yaqaan COPPA taas oo lagu ganaaxay 5.7 milyan oo dollar. horumarka ay ka gaadhay waa midka ay ka yaabeen
Facebook, YouTube iyo Instagram. sida ay ku noqotay applicationka ugu downloadka badan caalamka. maanta qiimo ahaan waxay ku fadhidaa lacag dhan 75 bilyan. sidaas oo ay la yaab ku noqotay shirkadda Uber oo iyadu markaa ahayd shirkadda koowaad ee caalamka xagga qiimo ahaan.